Professor Ahmed Ismail Samatar oo ka mid ah hormuudka aqoon-yahanada Soomaaliland ayaa dalka dib ugu soo laabtay isagoo in muddo ah ka maqnaa. Professor Samatar oo garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport si diiran loogu soo dhaweeyay isla markaana ay soo dhaweeyeen wasiiro, xildhibaano iyo madax kale iyo dadweyne tiro badaniba ayaa qaybta nasashada ee garoonka diyaaradaha waxa uu kula hadlay warbaahinta. farxad waxay noo ah professorkeeni oo ka soo degay galabta oo aynu ku soo dhaweynayno Hargeysa iyo Somaliland oo aanu leenahay ku soo dhawow dalkaagii iyo dadkaagii hooyo ee aad u timi imaashaha Somaliland intaanan diyaaradda soo fuulin markay taladu goodo in lagu soo noqdo wadankii aniga xumad bay gelisaa iyo jirkayga oo si kala noqda iyo maskaxdeeda oo si kala noqdo hurdada ii diida oo xiisa cusub ayaa isoo gala ilaa ay diyaaraddu dhulka soo taabato jamhuuriyadda Somaliland iyo magaalada Hargeysa markay soo foorsato diyaaraddu niyadan ka ogsadaayo magaalada iyo dadkii iyo dhalinyaradii qaasatan reer Somaliland inaanu is aragno aad iyo aad baan u rajaynayaa Somaliland dadkeygana salaam baan halkan uga dirayaa ceelaayo ilaa loo yacdo iyo inta u dhaxaysa aan doonayo inay halkan aan ka gaarsiiyo Somalilandna ha noolaato wada jirkeyguna ha noolaado shaqo badan baana inoo taala waxaan se maanta caawa doonaya halkan dadka inaan ka gaarsiiyo oon ku ilaaho jamhuuriyadda Somaliland wixii ay qabsatay oo aad u fara badan oo baanka yaala in la ilaaliyo ayaa loo baahan yahay qabiil iyo dimuqraadinimo iyo dawladnimona isma galayaan labadaa in la kala fogeeyo ayaynu u baahannahay haddii jamhuuriyadda Somaliland ay noolaanayso waa inay noolaato waxay u baahan tahay markaa inaynu dilno qabiilku if Somaliland has to live tribe will have to die the Somaliland noolaanayso sii soconayso sii kobcayso waxa qabiil la yiraahdo waa inuu dhintaa shaqadaas ay noo taala walaalahay waad mahadsantihiin qofkii inta wax ka badan doonayo una faahfaahinteedana waa inoo jaamacadda Hargeysa iyo